السلام عليكم داوديال قodobada qaranjoog news wararkan aad ku daawan doontaan waxa kamid ah Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ee weerarayaan saraakiil ciidan ayaa xali kormeeray goobihii shalay ay ka dhaceen qaraxyada agagaarka iskuuska sayidka iyo kontaroolka laga ilaaliyo garoonka aadan cadde oo ku yaala kilometer 4 taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliyeed General Bashir Abdi Maxamed Americo la hadlay warbaahinta ayaa digin culus u diray shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho siyaasiga Abdurrahmaan Cabdishakuur Warsame ayaa ka hadlay xasuuqii arxan darrada ahaa ee magaalada Gaalkacyo loo geystay 13 ruux oo ka soo jeeda deegaanada magaalada Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed wararka naga soo gaarayo gobolka Togdheer ayaa sheegay in hal askari ciidamada ka tirsan Soomaaliland uu ku nafwaayay iskarimaad ku dhaxmaray deegaanka Fiqi Ayuub dad shacab ah iyo ciidamada amniga madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa maanta axada shaaca ka qaaday wixii ka bilowday bishan soo socota July dalkiisa ay soo gaarayeen kantalaha casriga ah ee magacoodii markii la soo gaabiyo S xariijin 40 kuwaas oo kantalaha difaaca qodobadaasi qodobo kale oo daahsanayo wararkan qaranjoog news ku daawan doontaan u diyaar garow wararkan iyo dhameystiran marka la daawadayaal isku soo noqod haboon meel walba naga daawanaysaan fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkeena qaranjoog news subscribe inoo saar gabalka faro si uu ku soo gaaro wararkii u dambeeyay aan ku bilaabo Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ay weliyaan saraakiil ciidan ayaa kormeeray goobihii shalay ay ka dhaceen qaraxyada agagaarka iskuuska sayidka kontaroolka laga ilaaliyo garoonka aadan cadde ee kilometer 4 Xasan Cali Khayre ayaa goobahaasi u tagay sidii uu qiimeyn ugu sameyn lahaa qasaarihii ay reebeen qaraxyadaasi waxaana uu sidoo kale goobahaasi u tagay sidii uu bogaadin lahaa ciidamada ammaanka qaraxyadaasi ay fashiliyeen Ra'iisul Wasaaraha ayaa ciidamada ammaanka ku bogaadiyay geesnimada ay muujiyeen sidii ay ugu guuleysteen inay qabtaan mid kamid ah ragii dabcan waday qaraxyadaasi oo la socday gaadiidka ay shalay qaraxyadaasi magaalada Muqdisho ka sameeyay waxaana uu ballan qaaday Ra'iisul Wasaaraha Xasan Cali Khayre askartii shalay fashiliyay qaraxyadii ka dhacay kilometer 4 la siin doono abaalmarino ay ku farxaan waxaana uu yiri in haddii ciidan kasta oo geesinimadan muujiyo waxa uu mutaysan doonaa abaalmarin gaar ah waxaana uu ciidamada ammaanka ku bogaadiyay inay halkoodii ka sii wadaan shaqada adag ay dalka iyo dadkaba u hayaan qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan kii ka dhacay gaarka isgooska sayidka ayaa galaaftay nolosha 10 ruux iskugu jira shacab iyo ciidan waxaana qaraxyadaasi mas'uuliyadeeda sheegtay al-shabaab taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliya General Bashir Abdi Maxamed Americo oo la hadlay warbaahinta ayaa digniin culus u diray shacabka ku dhaqan Muqdisho taliyaha Americo ayaa shacabka ugu digay guryahooda inay ka kirayaan xubnaha ka tirsan al-shabaab oo ay warar iyo qaraxyada ka geystaan gobolka Banaadir sidoo kale taliyaha ayaa shaaca ka qaaday in aysan u dulqaadan doonin haatan iyo wixii ka dambeeya in ay gabaad la siiyo al-shabaab sidoo hadalka u dhigay waxa kale uu xusay in dawladda federaalka Soomaaliya ay dejisay qorshe cusub oo lagu wajahayo dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab taliyaha Americo ayaa sidaas darteed shacabka kaga dalbaday in ay garab istaagaan ciidamada ammaanka kuna soo wargeliyaan qatar kasto ay dareemaan hadalkani ayaa ku soo aadayo xilli shalay magaalada Muqdisho ay ka dhaceen qaraxyo isxiixiga oo waxyeello ka soo gaartay askar iyo shacab siyaasiga Abdurrahmaan Cabdishakuur Warsame ayaa ka hadlay xasuuqii arxan darrada ahaa ee magaalada Gaalkacyo loo geystay 13 ruux ka soo jeedo deegaanada maamulada Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed Abdurrahmaan Cabdishakuur ayaa sheegay in wax la yaab ay tahay siyaasiyiinta ka hadashay xasuuqii Gaalkacyo ambaareeyay ayna ka hadli waayaan xasuuqii Baydhabo ka dhacay sanadkii hore siyaasiga Abdurrahmaan Cabdishakuur ayaa arintaasi kaga hadlay qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook isagoo xusay farqiga u dhaxeeyo labadan xasuuq ay Baydhabo iyo Gaalkacyo waxaanu u dhignaa qoraalkiisa sida tan hadii uu siyaasiga rabo in shacabkiisa uu rumaysto ama uu aamino waxa laga maarmaan ah inuu dareen iyo mowqif isku mid ah kaga jawaabo fal kasto gurracan xildhibaano badan oo labada aqal baarlamaanka ka tirsan iyo siyaasiyiin kaleba waxay cambaareen xasuuqii Gaalkacyo waa tilaabo fiican laakiin wax la yaabo waxa marka laga reebo tiro yar oo farqo tiris ah inta badan xildhibaanada iyo siyaasiyiinta xasuuqii Gaalkacyo cambaareeyay joog kama aysan oran labada aqal ee baarlamaanka soo ma hadal qaadin xasuuqii sanadkii hore Baydhabo ka geysteen ciidanka dawladda iyo kuwa Itoobiya balse inta badan ma ay wada taageerin oo way cambaareeyeen
halka qaar kalena ay dowladda ay taageereen. Farqiga u dhaxeeyo labada xasuuq waa in kii Baydhabo ka dhacay ay dowladda ka dambeysay oo lagu dhici waayay in la cambaarayo, laakiin xasuuqii Gaalkacyo ka dhacay ma jirin cid gooni ah oo cambaaristiisa loogu cabsado ama loogu waji gambado. taas ayaana keentay in cid waliba cambaarayso, halka xasuuqii Baydhabane ay xildhibaano iyo siyaasiyiin tiro yar ay ku dhiiradeen. Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo bartiisa Facebook qoraalkani ku soo qoray ayaa waxa ugu dambeysiyay madaxweynihii ugu horreeyay Soomaaliya Mudane Aadan Cusmaan Cabdulle ee UN ayaa laga reebay Soomaali dadkiina kala barta. wararka naga soo gaarayo gobolka Togdheer ayaa waxay sheegayaan in hal askari ka tirsan ciidamada Soomaaliland oo ku nafwaayay iska horimaad ku dhaxmaray deegaankaasi Fiqi Ayuub dad shacab ah iyo ciidamada amniga. sida aan ku helno wararka hordhaca, dad shacab ah oo ka godoosan ayaa ciidamada amniga isku dayeen in ay kala dareeriyaan, taasoo sababtay in mid ka mid ah shacabka dhagaxintii ay tuurayeen ciidamadaasi uu sababsaday. marxuumka ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Kaysan Maxamed Cawaale, waxaana lagu dilay dhagax sida ay u xaqiijiyeen Qaranjoog News ila ku dhow deegaankaasi. sidoo kale waxaa dhacdadaasi lagu dhaawacay 2 askari oo la socotay sarkaalka la dilay. ilaa iyo hadda si dhab ah looma ogo sababta shacabkaasi ka go'doodeen, balse waxaa soo baxay warar sheegayo in maalmihii ugu dambeeyay ay deegaankaasi ka socdeen dhaqdhaqaaqyo laga baarayo macdanta, taas oo si weyn uga caroodeen dadweynaha dhulkaasi. wararka qaar ayaa sheegayo in kooxaha hebtooda la garanayn ay fuliyeen dilkaasi kadibna ay goobtaasi iskaga baxsadeen. ma jirto ilaa iyo hadda wax hadal ka soo baxay Soomaaliland oo ku aadan dhacdadaasi oo la yaabka ku noqotay dadka ku dhaqan deegaanka maamulkaasi. madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa maanta waxaad shaaca ka qaaday wixii ka bilowda bishan soo socota July in dalkiisu soo gaarayaan kantaalaha casriga ah ee S-40. kantaalahaas oo ah kuwa difaaca cirka ayaa dowladda Turkiga waxay ka iibsatay dowladda Ruushka, waxaana ay arrintaani abuurtay khilaaf xooggan oo soo kala dhaxgalo dowladaha Turkiga iyo Mareykanka. madaxweynaha Erdogan ayaa shaaciyay in ay ku faraxsan yihiin inay helaan una dalkoodii soo gaaro bisha soo socotay July kantaalaha S-40 oo ah kuwa lidka diyaaradaha oo casri ah. heshiiskan Turkiga kantaalaha ugu soo iibsanayo Ruushka ayaa khilaaf xooggan ka dhaxdhaliyay Turkiga iyo Mareykanka, waxaana Mareykanka uu ku hanjabay inuu cunaqabateyn ku rogi doono Turkiga haddii ay ka dhabayso heshiiskan kantaalaha S-40 ay ku soo iibsato. dowladda Mareykanka ayaa sidoo kale dowladda Turkiga ugu goodisay in ay joojin doonto heshiiska xukuumadda Ankara ay ku iibin lahayd 100 diyaaradood oo ah kuwa dagaalka, gaar ahaan kuwa nooca loo yaqaan F-35 haddii uu Turkiga ka iibsado Ruushka kantaalaha S-40. waxaa intaa noogu dhan wararkii u dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka ee aad ka daawanayseen Qaranjoog News. hadduu wariyuhu tilmaamo xogtiisiyo waajibkiisa, wargeysyada hadduu ku faafo adigu agar hawga qadan, waradkii dhibashada ha moodin, haweerin